kunba kala xanaaqday goobta way isku xistaa dalbaad heed garasho dheer halkaan ku soo barbaariyo xuntuteeda ku aasneen awawe Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac hees ruuxantii in badan uu soo waday ayuu ku soo amaanay reer Somaliland oo ku sheegay runtii dadkii aan ku soo barbaariyo dadkii aan ka dhashay dad igu qaaliya tiin miyaan marna ma ilaawi karaa dad nila dhigmaan jirine haddaba reer Somaliland oo heestan ugu talagalay si khaas ah ayuu ku soctaa sidoo kale kadib markii uu 3 cisho kadib uu ku soo baahiyay bartiisa YouTube-ka ayaa waxay ku sii dhowday ugu yaraan 500 oo kun oo qof 500,000 qof inay daawato sidoo kale Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac dawladda xilka sii dhamaanaysa ee federaalka Soomaaliya ayaa siisay xil kadib markii uu Somaliland ka cararay ee khilaaf soo kala dhaxgalay sidoo kale Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac isla taxadiradii ugu dambeeyay wuxuu ku sugnaa xaggaas iyo qaaradda Yurub laakiin isagoo ku qabtay showyo badan iyo sidoo kale showyo badan ka qayb galay Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac ruuxantii qofna loo sheegmayo runtii waa fanaan ka tirsanaa xidigaha geeska sidoo kale Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac wuxuu ku soo barbaaray magaaladii ee Boorama kadib isagoo halkaas reerkiisa xaaskiisa iyo hooyadiiba degnaayay familkiisa kadib markii uu xagga qurbaha qabtay isaga iyo xaaskiisa waxay u dhoofeen inay qurbaha iska dhiibaan Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac oo ruuxantii barihii ugu dambeeyay halkaas ku sugnaa ayaa heestan ku soo kala baahiyay bartiisa YouTube-ka sidoo kale dad badan oo YouTube-ka ka falceliya sida reaction-nada iyo warbixinada qarsoon ka bixiya ayaa sidoo kale sheegay in uu Somaliland u jeeday sidoo kale waxa laga yaabaa in uu Somaliland imanayo Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac kaasoo dabacsan in caasimadda Somaliland Hargeysa uu showyo ku qabsan doono mustaqbalkiisa insha Allah saas darteedna uu heestan ku soo amaanay maadaama khilaaf cusub kala dhaxeeyay gudaha Somaliland inta xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay haysatay sidoo kale Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac iyo fanaanin kale iyo jiryal kale ayaa ruuxantii Nimcaan Cabdiraxmaan maadaama dawladii hore ee xilka siisay Soomaaliya ay xilku ka sii dhamaanayo oo waxaan 3 bilood gaaray ay horsantay sidaas darteedna uu doonay in uu Somaliland yimaado halka ka helo nolol fiican si uu ugu dhaqmo oo runtii la jaan qaado dadka reer Somaliland ee runtii ah dad aad u qiimo badan sidoo kale maadaama xamar noqon weyday meel ruuxantii nabada sidoo kale Hargeysa tahay meel nabada ayuu runtii heesahan iyo baraarugadan uu Hargeysa ugu soo diray caasimadda Somaliland sidoo kale wuxuu isleeyahay shacabka ka xanaaqay reer Somaliland ha ku jeclaadaan oo dib ha u soo noqdaan saas darteedna xukuumadda Somaliland hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi saas cafisa kugu soo bixiso oo saas daraadeedna ku soo noqo wadankii aad ka timi markii horeba Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac oo barihii ugu dambeeyay haystay social media 1 million 1 week haystay ruuxantina la jira ama ruuxantii fanaaninta ugu horeeyay Somaliland ama ruuxantii fanaaninta Soomaaliya ugu horeysa waxa la oran karaa waa fanaanka kaliya ee bedel kara booska Xasan Aadan Samatar haddaba halkan saaxiib waa channelka xubinta wararka oo saaxiib u taagan runtii in mar walba niisoo muuqdiyo muuqaalada wacan ee runtii baraha bulshada maskaxdiina ka gooxaysa subscribe iyo like iyo comment ka ilaawin Facebook-geena waa nikade waa kaawan salaam ee saaxiibayaal